السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سحبت من البوجوكتاني صور بنا مقلسة وحكوس دبعتها شبكة سود جروبس مجيء جوا عبيد داهر وقال كاد كحسب الضوء يا واحد جعلها هنا نكوس وقبيو أصحابه هنا يقصوا أصلا قابك جنرال كود وكل كران سبسكرايب كود اسمه هذا الجنرال كود ودي كران جنرال أد وين سبسكرايب صار جنرالك sidoo kale gambalaalka furo si fiidii walba kugu soo dhaco سبسكرايب waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee channelkaada lagu doorto ismaanaantana dadka kugu soo xirmaan channelkaada haduu leeyahay subscribe aad u badan waxay ka dhigan tahay in dad badan ay kugu xirayeen ismaanaantana aad tahay qof magac weyn leh oo dadka kale ka soocan haddaba muuqaalkan waxaad ku soo gudbi doonaa wadooyinka ugu sahlan ee aad ku badi karto dadka kugu xiran ama subscribe-kaaga sida aniga aan u kordhiyay bilooyinka ugu dambeeyay subscribe-kayga wadada koowaad ee subscribe-kaaga ku badi karto daawadayaal waxay tahay inaad u shargareyso ama la wadaagto muuqaalkaada social media dhamaantiin iyo qof walba anaga mid ah wuxuu isticmaalaa social media sida Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram haddaba muuqaalkaada u shargaree social media adiga aad isticmaashid Facebook isticmaashid muuqaalka markaa soo dhigtid u shargaree dad badan ayaa halkaas ka soo raaci doona isla ahaantaana channelkaada ku soo xirmi doona habka labaad ee channelkaada subscribe-kiisa ku kordhi karto waxay tahay inaad mar kasta muuqaalo cusub aad soo geliso channelkaaga qaar ayaa isbuuc ama laba isbuuc waxay soo galashaan hal muuqaal oo kaliya kadib ayaa waxay ku dhahayaan channelkii ma kordhayo subscribe-kiisa ayaa taa ma badan maxaa yeelay channelka inay subscribe dadku dhahaa mahane unsubscribe ay ku leeyihiin subscribe adiga sugusa laakiin unsubscribe ay ku leeyihiin maxaa yeelay channelkaada lagu caadisayaa qof sugi kara ma lahan hal muuqaal maanta doo fiirsado 7 maalin ama 14 maalin kadib inuu muuqaal kala sugo aad iyo aad ay dhib ugu tahay samahaantana wuxuu ku qasbanaanayaa qofka ama uu jeclaanayaa inuu unsubscribe karo channelkaada oo iska dhaafaba haddaba si aad dad badan u heshid 3 muuqaal ama 4 muuqaal isbuucii soo geli si dad badan ay kugu soo xirmaan hab kale channelkaada ku kordhi kartid oo aniga aan isticmaalo oo secret ah waxay tahay in aad ka fikirtid waqtiga aad soo gelinayso muuqaalkaaga taas waxay ku xiran tahay waa inaad ogaataa marka ugu koowaad dadka kugu xiran intee joogaan intee ku sugan yihiin waa maxay dadkaada yacni nooca dadkaada yihiin waa inaad ku fikirtaa tusaale ahaan aniga kale channelka dadka fiirsa wuxuu badan yahay Soomaaliya marka waxaan ku xisaabtamayaa waqtiga dadkaas ay farqi yihiin tusaale ahaan aniga Soomaaliya jooga channelkayga markaan rabo inaan wax soo dhigo waxaan isticmaalaa 12 saac ilaa maqribka inta u dhaxaysa soo dhigaa maxaa yeelay xilligaas waa xilliga dadka ay farqi yihiin isla ahaantaana ku daawan karaan adiga marka waa inaad ogaataa channelkaada dadka ku xiran halka ay joogaan kadib waqtiga ay farqi yihiin iyo maalmaha ay farqi yihiin inaad muuqaalka soo dhigto ayaa loo baahan yahay haddii aad xiisaynayso inaad ogaatid dadka kugu xiran halka ay u badan yihiin fadlan qaybta comment-ga nagu soo qor iga soo codso insha Allah waxaan rajeynayaa inaan muuqaal cusub kaga sameeyo waxaa sidoo kale ka mid ah channelkaada waxyaabaha ku dhig karo inaad isticmaasho thumbnail waa wax aad iyo aad u muhiim ah oo basic u ah ama asaas u ah channelkaada ama muuqaaladaada oo views badan aad ka helaysid views-ka saddex waxay ku saalayaan in channelkaada dad badan ay ku soo xirmaan kadibna subscribe ku saaraan thumbnail haddaad aqoon thumbnailka waxaa waa sawirka ka horeeya muuqaalka isla marhaantaana ka turjumaya muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay haddii aadan aqoon xataa muuqaalada qaabka loo qurxiyo fadlan ku dadaal inaad isticmaasho thumbnail aad u qurux badan dadka soo jiita qodob kale oo aan jeclahay oo aniga isticmaalo oo rabo in aan idin la wadaago waxay tahay inaad isticmaashid title-ka يعني فيديوغا تتركسنا كديكتid mid bold ah oo far waaweyn aad ka dhigtid maxaa yeelay farta waaweyn micnaheedu waxay tahay waxaana wax muhiim yihiin waxa markay farta bold tahay muhiim inay yihiin ay mar walba tilmaamaan marka qofku markuu arko wuxuu leeyahay wow muuqaalka caadi ma uu ku dhufanaya marka muuqaalkaaga title-ka u sameynaysa ama ciwaanka u sameynaysa ahaato mid bold ama far waaweyn ku qoran sirta ugu dambeeya jeclahay inaan idin soo gudbiyo oo ka dambeysay guusheeda waxay tahay inaad isticmaashid tags aad u qurux badan tags waxay kamid tahay wax dadka soo jiita yani tags hadaa isticmaashid tusaale ahaan hadaa dagaalka aad ku tagtalkaada ka dhigtid ama hees aad ka dhigtid wuxuu soo sugili doonaa muuqaalkaada fanaaniinta ama heesaha ayuu soo sugili doonaa marka adiga mawduuca aad ka hadlaysid ayaad ku qoraysaa title-kiisa tusaale ahaan markaad teknolojiyada ka hadlaysid title-ka waxaa ku qoraysaa oo kale Soomaali technology YouTube da ka hadlaysid YouTube qaabka lacag loo sameeyo YouTube waxyaabahaas ayaa soo sugeenaysaa muuqaalkaada si aad wax walba oo YouTube ku saabsan markii qof uu gasho muuqaalkaada oo soo baxo waxaan rajeynayaa daawayana muuqaalka aad ku xisaabada aad ka heshan oo sirkan ka faa'iideysan doontaa insha Allah anna waxaan idin balaqaadaa haddii aad wadooyinkaas si saxan u raacdid inta ku sheegana aad raacdid inuu channelkaada isbedel weyn ku imaan doono insha Allah oo dad badan ay kugu soo xirmi doonaan ودنبن وادكم هاسيتين داوشة داوتين مقالكن فضلا أديك داونا يدا كعسة جنرالكي بي سبسكرايب كسمة سو كان لايك صار مقالك سيد نوجد رجلس مهان ترى مقال بعصب وأنا ياسوق اللي كوسو دعان دي السؤال قبتكم تكونوا سكر وادكم هاسيتين مرة بعد وأنا قاعد بدار أونلاين باي باي